ahaantii caawa waa habeen taariikhi ah oo aan joogno magaaladii Gaalkacyo oo aan isleeyahay waa markii labaad ee muddo bil ah aan halkan ku soo noqono. waxaan halkan idinku nimidnay bil ka hor annagoo halkan kulan ku qabanay aan uga tashanaynay sida aan u wajahayno ka qayb qaadashada dib u eegista dastuurka. dhammaan wajiyadan waa wajiyadii aan soo hor fadhiisanay oo aan howlkan ku doodnay ku niqaashnay intii ay dooduhu socdeen mudane wasiir, mudane guddoomiye, mudane senator. dadkan dad intellectual ah, hal abuur leh marka laga hadlayo dadka reer Galmudug, firfircoon, aadna u foojigan, faham qoto dheerna ka haysto waxa laga hadlayo ayay u badnaayeen intii aan deegaanada Galmudug maraynay. sidaas ayaan waxaan go'aansanay inaan idinku soo wargelino in Gaalkacyo ay muhiim tahay, horaadna ka aqbasheen in Galmudug aad timaadiin. Gaalkacyana ballantii aan inta ka qaadnay oo hay'adaha inaan hay'adahan guddiyada iyo wasaaradda uu hogaaminayo wasiirka inaan halkan keeni doono. ilaahay naguma ceebeen, ayadoon bil ka soo wareegin ayaan caawa isla joognaa. sababtuna waxay ahaaday dokumentigan dastuurka niqaashkiisii ayaa waxaa ka dhashay waxaan u baahannahay inaan si mug leh iyo miisaan leh uga qayb qaadano sida ay dhaheen dadka reer Gaalkacyo. muggaas iyo miisaankaas culus ee ay damacooda ahaa inay uga qayb qaataan ayaa waxay dhalisay inaan annaguna ballan qaadno inaan si mug iyo miisaan leh u keenno hay-adihii u xil saarnaa halkan si ay u dhageystaan doodaha iyo ka qaybgalkooda dadka reer Galmudug. mudane wasiir, teerankan waa soo jeedaan wixii hore dastuur loo soo sameeyey haddaysan tala iyo ku yeelan tusaaleyn, maanta waxay diyaar u yihiin inay tala iyo tusaale ay ku yeeshaan, qaybna ka qaataan qarandhiska Soomaaliyeed sida ay taariikhdaba uga qaadi jireen. intaas markaan ka baxo, bulshada reer Galmudug qaybteeda reer Gaalkacyo oo maayarkooda hogaaminayo, runtii waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida mar kasta aad u heelan tihiin. hadday ahaan laheeday soo dhoweynta martida, hadday ahaan laheeday ka qayb qaadashada waxyaabaha masiiriga ah oo dadka iyo dalka iyo deegaanada Galmudugba anfaca u leh. runtii waxaad tihiin mar kasta dad priority siiya. waxaan rabnaa caawa waxaan halkan u joognaa dastuurka Soomaaliya. waad garanaysaan taariikh fog ayuu leeyahay dastuur samaynta Soomaaliya. runtii jamhuuriyaddii ka dambeysay waxaa la sameynayay isku day in la helo dastuur Soomaaliyeed oo dhammaystiran oo qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladnimadoodana u dhaxeeyo, maadaama uu dastuurku yahay isku xiraha bulshada iyo dowladda.